gaadiidkan subaxnimada hore gudbaya ayaan saaranahay annagoo la safrayna qaar ka mid a culimada xerta Rabiiciya kuwaasi oo hogaaminayo Cali Macruuf Sheekh Maxamed Rabiicudiin oo ay weheliyaan Mubaarak Sheekh iyo Cabdibaasid Sheekh oo hormuud u ah xerta ka imaanaysa bariga Puntland kuwaas oo u socda siyaarada Sheekh Maxamed Rabiicudiin Sheekh Yuusuf Sheekh Cabdi oo sanad kasta la dhigo. haddaba waa kuma Sheekh Maxamed Rabiicudiin waa kan Cali Maxamuud Xasan oo ka mid ah xertii uu waxbaray sheekhu. شيخ محمد ربيع شيخ يوسف شيخ عبدي نصبية يوسف هي الشيخ خواب يونس وهي الشيخ معروفة وهي الشيخ حسنة لذا شيء في سنة كتاريخ الميلادي مركي هاي كون يستقال بقول يكوبي الله تنكي ayay dhalashiisahay wuxuu ku dhashay gobolkaas dhagax buur meel ku dhow buurta weyne Sabati layla iyo dooxada Bardaxle dhexdooda ku dhashay Sabati iyo Bardaxle beena Sabati iyo Bardaxle labada dhexdooda ayuu ku dhashay gurigii aabihii ayuu ku soo barbaaray hooyadii isagoo 3 bilood jira ayay wafaaday dhimatay aabihii Sheekh Yuusuf baa soo koriyay 28 jir isagoo ah ayaa la soo diray diinta nugaal ka faafi iyo bari halkan hadda aynu joogno bogcadan طريق الشيخ يونس وحويمي isagoo 28 jira halkaas ayuu diinta fiinteeda ka bilaabay oo cidlaah oo cid joogin oo magaalo ahayn oo waxba ka dhisnay dadkii dhulka joogay wuxuu yiri macallin baan ahay diinta dadka baraya wixii yimaadana ana masruufaya diinta ana baray waan masruufaya markaan sidaa leeyahay waxaan uga jeeday buu yiri qof walba Ilaahay baa arsaaqdiisa qoray intuu nool yahay uu isaga arsaaqaya inuu dilo iyo inuu arsaaqdiisa kama dhaxayso Ilaahay isaga ballan qaaday wama min daabatin fil ardi illa ala Allah rizquha 12 sanadood ayay ingiriiskii wada joogeen ingiriiskii dhulka joogay ingiriiskii iyo Soomaali uu wato oo ayaa kula dagaalamay wax walba ku sameeyay meeshuu degaba gubay waa lagu diro ninkan waxa ay galbeed buu ka yimid wayna Cabdullaah Xasan wuxuu doonayay aakhirka in rag badan intuu ururiyo la dagaalamo dawladda dhibaato badan bay u geysteen halka kan xaruntan 25 guri iyo 370 area oo u joogay iyo macallinkii quraanka dhigay intii way ku gubtay dabba inta la suray baa rasaasna lagu bilbay 7 xarmood oo saasa lagu gubay ugu soo diinta fidinteedii iyo qasadkiisii in la kamuleexan badi culimada halkan yimaada waxa inta ay joogaan tagayaan qabriga sheekha si ay quraan ugu soo akhriyaan uguna duceeyaan allana uga baryaan inuu janno firdawsa ka waraabiyo waxaana la kulanay Sheekh Qoor Dheere oo ka mid ah culimadaasi oo nooga waramay khayrka ku jira siyaarada ziyaaro luqad arab waa booqasho dhinaca kale markii laga fasiro ziyaaradu waxa weeye dadka muuminiinta oo soo booqda mashaayikhdoodii
ama waalidiintoodii ama muslimiinta kaleeto soo booqda yimaada taasoo ah wax nebiga looga dayday nebiga calayhi afdal asalaatu wassalaam wuxuu sameeyey inuu siyaarada bixitimo nebigaa looga dayday siyaarada in loo bixitimo nebigu markuu joogay madiina sanadkii la arkaba marka bisha koowaad wuxuu bixitimi jiray qabuurihii shuhadadii uxud oo ka baxsanaa magaalada madiina sanadkii la arkaba sidaa waxaa samayn jiray sayr sidiiq cumar bin khadaab cusmaan bin cafaan ilaa yoomana haaday ka soo gaadhay siyaarada in la soo booqdo mashaa'ikhda saxaabtii awliyadii waalidiintii ehlullaahigii mu'miniinta dhammaantood in qabuurahooda la tago loo duceeyo lagu ducaysto waa mashruuc aan qofna ka hadlin 11 qarni islaamku soo socday yaano quraanka akhriyay oo sheekhay quraan oo akhriyay oo ziyaaranaya waxaan ka yimi oo quraanka anigoo akhriyay oo hadda fadhiya ayaa wariyuhu ii yeeray Jaafar aad iyo aad baan u mahadsantahay waxaana ka yimi gobolka Sanaag gaar ahaan degmada magaranaysaa baraagaha qol ayaan ka tirsanahay kulli quraanka ay wada akhriyaan sidaas ayay ugu ducaynayaan sida ay hadhoon ku kala baxayaan wajigooda waxaa ka muuqata jacaylka ay u qabaan sheekooda waxayna soo xaadireen xaflad kale oo lagaga sheekaynayo taariikhdii wanaagsanayd ee sheekhu uu u soo maray u adeegidda diinta si ay dhalinyarada maanta joogtaa ay uga daydaan waxaana xafladda ka baxaysa qasiidadan oo ka sheekaynaysa sheekh maxamed rabiicudiin allah ha ka raali noqdee xerta oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed waxay dadaal dheer ugu jiraan sidii dadka diinta loo gaarsiin lahaa taas oo ka mid ah yoolashii loo asaasay waxaana sanad kasta dariiqooyinka kala duwan ee xerta ka soo baxa da'yar kala duwan kuwaasi oo bartay cilmiga noocyadiisa kala duwan Jaafar Macalin Maxamed warbaahinta dawladda Garow